السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كمركز السود وهذا أدي ما تنتهي مقال كان وحن ربا إن ندي كل وذاقه نين عدانا لكن أصلهان إيش يكسر جدا أو community الصومالي كويرري كجارهان قبله مساجد كويلا قبل كفرجينيا جارهان مقالة اللي يرادو فيرفاكس أرنتاسي سيدي كل عدي نكاسين محيين دنبيدا لجوسو أوجي laakiin kuwa iyaguna la dalbanayo in lagu soo oogo aan lagu soo oogin maxay yihiin waan idin la wadaagaya xildhibaanad Ilhaan Cumar oo waraaq u dirtay wasiirka amniga gudaha Mareykanka Christine Noem iyadoo ka dalbanaysa in ay kala cadeyso bartilmaameedka Soomaalida Minneapolis iyo St Paul ciidamada ICE ay ku hayeen iyo waliba awoodda xad-dhaafka ah oo ay u adeegsanayeen ayna labadii toddobaad ee la soo dhaafo howlgallada ay dadka sharci darrada ama kuwa dambiilayaasha ay sheegayeen inay ku qabqabanayeen waxa sidoo kale jirta iyada iyo 9 xubnood oo kale inay waraaq u direen wasiirka amniga gudaha oo ay ka dalbanayaan in TPS temporary protected status-ka aan laga kansalin dadka Soomaalida iyadoo aan ognahay hadda Ethiopiankii in jimcihii laga kansalay arrimahaasi ayaan rabaa inaan idila socodsiiyo balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay madaxweyne Trump ilaa iyo dhamaadkii bishii hore markii dadka Soomaaliyeed si gaar ah u bartilmaameedsaday isla markaana toddobaadyadii u dambeeyay haddii aqalka cad uu ka hadlayo iyo haddii xaflad kale uu la hadlayo iyo haddii taageerayaashiisa uu la hadlayo magaca Soomaaliya uusan afkiisa ka bixin iyo waliba dadka Soomaalida ah ayaa waxa jirta in dadkii Soomaalida ah la bartilmaameedsanayo gaar ahaan kuwa muslimiinta ah dumarka maadaama ay ka muuqanayso xijaaban yihiin in ay muslim yihiin waxaa jirtay 28 bishii hore ee November masjid ku yaala magaalada Fairfax oo gobolka Virginia oo aan ka fogeyn caasimadda Washington DC in nin cadaan ah laakiin asal ahaan Asia ka soo jeedo wadanka Thailand in uu ku weeraray gabdho muslimiina masaajid iyagoo ka soo baxaya masaajidku dhismo weyn ayuu ku yaalaa ninkan xafiis ayuu ku leeyahay qaybta hore mana ahan markii ugu horeysay oo arrintan sameeyo sanadkii la soo dhaafayna waa uu sameeyay waxay leeyihiin ninkan marka uu cabo uu cabsan yahay ayayba ka qabataaba dadka muslimiinta masaajidka intuu tago inuu ku soo caayo amaba uu dhibaateeyo marka waxa hadda la leeyahay 28 bishii hore gabdhahan iyagoo ka soo baxaya masjidka ayaa isagoo bir wata uu albaabka ka soo istaagay kadibna waxa uu ku qaylinayay erayo islaam nacayb ah oo halkan aan ka sheegi karin laakiin qoraalkooda aan idin tusayo sawirkiisa iyo waliba isaga oo leeyahay haddaad muslimiin tihiin isaga taga halkan uu leeyahay erayadaasi iyo kuwa kale oo aflagaada ah oo ku qaylinayo markaas kadib gabdhaha waxa la arkay iyagoo qaylinaya oo gadaal u sii cararaya isla markaana dhahaya booliska ayaan waceena booliskii ayaa la wacay booliskiina masjidka waa uu yimid markaas kadib ninkan waa la xiray laakiin dambiyada lagu soo oogay ninkan ma ahan kuwii uu u qalmay had kaba soo qaad hadda qof muslim haddii inta uu kaniisad galo oo yiraahdo dadkiinan gaaladan waa idin nacbahay waa idin laynaya hadduu yiraahdo ninkaasi qofkaasi waxaa lagu soo ogi lahaa dambi nacayb ah in dadkan diinta Christianka haysta in uu nacab yahay isla markaana doonayo inuu dhambeeyo laakiin ninkan oo waliba repeat offender ah oo arrintan hore u sameeyay sanadkii hore oo wax dambiya aan ku mutaysanin haddana mar kale sanadkan sameeyay dambiyada lagu soo ogay waa dambiyo iska raqiisa waxay yihiin dambiyada lagu soo ogay inuu weerar geystay iyo sidoo kale transpassing inuu sameeyay oo ah transpassing waxa la yiraahdaa meel aan lagugu talagelin inaad iska gasho oo aad amar u haysanin guryaha waa ay ku dhagan tahay calaamada ayaa ku dhagan goobaha ganacsiyada waa ay ku dhagan tahay marka meel aadan amar u haysan inaad iska gasho iyo sidoo kalena inuu hanti burburiyo ninkan waxa la arkayay birtii uu watay markii uu kaamara arkay duubaysa inuu isku dayay inuu kaamarada jabiyo muuqaalka ayaa laga dhaxarkay marka ninkan birta ayuu watay waxa uu doonayay in qofkii uu arko in uu madax kaga dhufto haddii uu dili karana dilo ama dhaawac uu u geysan karo uu u geysto marka arrintaasi waxay noqotay arrin si weyn loola yaabay maadaama ninkan dambigii nacaybka ahaa oo in dadka muslimiinta uu nacab yahay aan lagu soo ogin gabi ahaanba sidaas darteed hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta oo la yiraahdo loo soo gaabiyo CARE isla markaana ah Council of American Islamic Relations waxay yiraahdeen arrintaasi arrin la qaadan kara maahan hadda jimcihii la soo dhaafay ayayna waxayna sheegeen inay ka dalbanayaan dacwadoogaha gobolka iyo waliba kuwa federaalka in ninkan oo magaciisa la yiraahdo Dr. Tony Haishio in lagu soo oogo dambigaasi nacaybka ah isla markaana si buuxda loola xisaabtamo marka afayeen u hadlay hay'adan u dooda xuquuqda muslimiinta oo la yiraahdo Ahmed Kaki ayaa waxa uu yiri ma ahan in lagu cafiyo ninkan weerarka uu u geystay mid kamida goobaha dadku ay diintooda ay
ku caabudaan isla markaana waxa uu xaqiijiyey in arrintan loo baahan yahay fariin cad in loo diro dhammaanba dadka diimaha kala duwan haysta taasi oo weliba dadka ku nool magaalada amaba countiga Fairfax iyo guud ahaanba wadanka inaan loo dul qaadan karin in goob dadku ay iyagu diintooda ku practice gareynayaan in aan dhibaato loogu geysan oo aan lagu weerarin marka ninkan arrintan caado ayuuba ka dhigtayba horey ayuu u sameeyey hadda ayuu mar kale ku laabtay sidaas darteed dambiyadii uu mudnaa laguma soo oogin marka weli cadaadis ayaa jira oo hay-adan xuquuqda muslimiinta ay leeyihiin waxaan doonaynaa in dambiyadaasi nacaybka ah lagu soo ogo ninkan weliba waa dhakhtar isla markaana xafiiska uu ku leeyahay masaajidka dushiisha waxaa la leeyahay waa xafiis dhinaca daawooyinkiisa iyo waxyaabahaasi qaabilsan inta badanna marka uu cabsan yahay ayaba ka qabataaba inuu masaajidkan soo aado oo dadkan muslimiinta uu caawiyo aflagaadiyu isku dayo inuu dhibaateeyo marka dacwadahaasi hadda waa la sugayaa in lagu soo oogi doono iyo in kale markaas hadda saddexdan dambe oo lagu soo oogay dambiye aad u waaweyn ma ahan midkii ugu weynaa oo ahaa islaam nacaybka ilaa iyo hadda ninkan laguma soo oogin dhinaca kale waxaan ognahay magaalooyinka St Paul iyo Minneapolis in labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ilaa iyo 1 bishan ciidamada ICE ay ka wadeen howlo qabqabasho ah oo ay leeyihiin dadka dambiilayaasha iyo kuwa sharci laanta ayaa ku bartilmaameedsanayna laakiin waxaan ognahay in muwaadiniin Maraykan ah lagu xiray oo xitaa saacado inta la haystay la dhibaateeyay kadibna la soo daayay haddaba xildhibaaneed Ilhaan Cumar ayaa waxa ay jimcihii waraaq u dirtay wasiirka amniga gudaha Christine Noem iyo ninka madaxda ka ah ciidamada ICE waxayna leedahay waxaan doonaynaa inaad noo kala cadaysaan sababta dadka Soomaalida ah oo kaliya midabkooda iyo weliba diintooda loogu bartilmaameedsanayay isla markaana loo isticmaalayay awood xad dhaafa oo aan loo baahnayn marka waraaqdaasi ayay u dirtay ilaa iyo haddana lama ogo in ay uga soo jawaabi doonaan iyo in kale wasiirka amniga gudaha iyo weliba ninka madaxda ka ah ciidamada ICE sidoo kale waxaa jirtay waraaq iyada iyo 9 xubnood oo kale ay wasaaradda amniga gudaha gaar ahaan wasiirka amniga gudaha ay u direen oo ay ka codsanayaan in dadka Soomaalida aan laga kansalin temporary protected status-ka oo ku eg bisha March ee saddexaad ee soo socota 17keeda sanadka 2026 Trump waxaan ognahay bishii hore bartamaheedii inuu yiri Soomaalida waan kan kansalay TPS laakiin wasiirka amniga ayaa kansali karta marka waxa ay ku saxeexan xildhibaanad Ilhaan iyo 9 xubnood oo kale oo ay leeyihiin dadkan dhibaatooyinka ay wadankooda uga soo carareen ilaa iyo 1990kii markii loo ogolaaday TPS temporary protected status-ka wali wadankii waa ay ka jiraan Trumpna waaba ka markasta ku celcelinayaba wadan meeshaasi kama jiro oo wax sharciyana kama jiraan sidaas darteed ay waraaqdaasi u direen Etoobiyaanka dadka Soomaalida oo baasaboor Ethiopian isku dhiibay TPS-ta Etoobiyaanku waxay ku ekayd jimcihii oo 12 bishan marka wasaaradda amniga gudaha waxay sheegtay in gabi ahaanba laga kansalay Etoobiyaanka temporary protected status-ki marka Ethiopia haddii laga kansalay Soomaalida marka ay ka dhamaatana waxaa muuqata in la kansali doono oo aan loo cusboonaysiin doonin sida hadda wasaaradda amniga gudaha laga arkayo markastaba wadamada ay ka dhamaanaysa Myanmar oo kale waan arkaynay iyadana dhowr toddobaad ka hor ayaa laga kansalay hadda Ethiopia ay maraysaa marka Soomaalida ayaa ku soo xigta horeyna sidoo kale wadamo kale oo Nicaragua Cuba Venezuela iyo Haiti ka mid yihiin ayaa TPS horey looga kansalay marka sida muuqata hadda Soomaalidana waxaa laga yaabaa marka la gaaro bisha saddexaad dadka haysta oo aan badnayn oo 700 oo qof ilaa 705 qof la yiraahdo in iyagana TPS-ta laga kansali doono sida hadda ay wax ku socdaan marka la eego aad iyo aad u mahadsantahay nabadgelyo